munaasabada ciisiinta caruurta agoonta ee deegaanka cagaaran ee gobolka Mudug ayaa waxaa maalgelinteeda lahaa musharax xildhibaan Cabdulqaadir Xasan Dooy kaas oo ugu talagalay in caruurta ku nool deegaanka cagaaran ee gobolka Mudug ee degmada Gaalkacyo ay farxadda ciidda la qaybsadaan caruurta kale si la mid ah kuwa waalidiintooda ay ciisiyeen. munaasabadaasi waxaa ka soo qayb galay waalidiin maamulka deegaanka cagaaran aqoon-yahano nabadoono musharax xildhibaan Cabdulqaadir Xasan Dooy. munaasabadaasi waxaa hadal ka jeediyay mas'uuliyiin kala duwan oo ka mid yahay Sheekh Cabdisalaam. agoonta maanta oo ka farxiyay oo kala nagala qayb qaadatay maanta inaan farxano ciyaalkii aabayaasha lahaa ayagu isku sii u ciideen ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu janno abaal uga dhigo Cabdulqaadir waxa markastaba Allah xabsidiisa ku soo dardaarmaynaa inta bacdigeed waxaan aad iyo aad u bogaadinaynaa ugu hambalyeeynaa u soo dhaweynaynaa Cabdulqaadir Xasan Dooy. waxaad bixisaan ilaahay baa bedelkeeda siinaya marka Cabdulqaadir waa ku mahadinaynaa waa ku soo dhaweynaa ardayda yararka oo ka farxiyay ciyaalkan yararka agoonta iyo tiinta oo ka farxiyay insha Allah waxaan leenahay ku dayasho wanaagsan dadka kalena waxaan leenahay ku dayda in lagu daydo qofku wax wanaagsan hadduu sameeyo waa lagu dayda midda ka rasuulku wuxuu yiri man ataaku bi ma'ruf fakaafi'u qofkii wanaag in keena oo wanaag in la yimaada kafeeya shukran dhahaya أنا رعاقارنا وحنا قررنا Cabdulqaadir tirnaa Cabdulqaadir waa mahadsan tahay halkan wuxuu u niyooday inuu caruurta walaalihiisa oo yar ka ah oo waalidka u yahay oo maadarada yihiin oo dadkiisa iyo deegaankiisa uu ciidsiyo sadaqa ilaahay inuu uga dhigo uu niyooday baan anaguna ugu ducaynaynaa waana xujo uu ku xiray aqoon-yahaniinta iyo dadka deegaanka u dhashay iyo ganacsatada iyo dadka diasporada intaba xujadaas in qof walba uu furan la doonayo xildhibaan waxaan ku leenahay welcome here with open hands soo dhawow musharaxeennii khayrka qabay waxaan isleeyahay waa xildhibaanadeena tirada badan shakhsiga ugu dhow dadka nugul oo reer cagaaran baan isleeyahay Cabdulqaadir Xasan Dooy khayr badan Allah siiyo agoontana waxaan isleeyahay agoon baa tihiin walaalkiin baa idinka farxiyey dhalinyaro tihiin dambi ma lihidin gidigin helo khayr baa tihiin saacad kasta u duceeya Cabdulqaadir Xasan Dooy feedback aan ku celin hadaan reer cagaaranahay waxa weeye adeer ilaahay subxaanahu wa ta'aala garabkaaga ha galo qofkii wax qabanaya oo bulshada u shaqeynaya oday taliba leetiisana ku watee qofkii bulshada u shaqeynaya asaga wixii dan ugu jidha waa meeshiis oo ummadda wax soo gaarsiinaya oo maskaxiyana dadka wax ugu faa'iideynaya ficiliyana ugu faa'iideynaya in la doorto xaq u leeyahay dardaaranka aanu bixinayna waxa weeyaan Cabdulqaadir Xasan Dooy waxa la tartami kara ninkii intuu qabtay oo kala qabta ina Xasan Dooy xaqiisi xaq buu magaalada ku yeeshay ilaahay baa u gudi kara ilaahay ha u gudo waxaan leenahay ciidan maanta la isugu yeeray isaga keenay oo dadkan meesha isugu keenay ilaahay ka barakeeyo ka abaal mariyaan leenahay marka Cabdulqaadir Xasan baalka la yiraahdo Xasan Dooy waxaanu leenahay hadda jannada meeshaad kale furaad ku leedahay Allah ku dabaalsiyo tan ugu dambeysay tan ugu horeysaba oo agoonta iyo saqiirka mar labaad u iidsiiyay ninka la yiraahdo tala ku iidsiiyay nacfina ku iidsiiyay maskaxna ku iidsiiyay ninka la yiraahdo Cabdulqaadir Xasan Dooy ilaahay baalka la yiraahdo dambi dhaaf iyo mughfiro kugu sii akhriya adduunkan Allah kugu taamiyo laan baxday oo dheeraatay in Allah ka dhigo gudoomiye ku-xigeenka deegaanka cagaaran Awil Maxamed Cigaal ayaa Cabdulqaadir Xasan Dooy ku amaanay garashada uu gartay inuu ciisiyo caruurta agoonta ciidinta ardayda agoonta ah oo halkan lagu ciidsiinayo isaguna xafladeedii runtii waxaan leeyahay Cabdulqaadir Xasan Dooy iyo qabanqaabiyaasha dhamaantood khayr Allah siiyo qurba joogta Cabdulqaadir wuxuu ka mid yahay dal joogto ka mid yahay waa la jooga laakiin qurba joogta kaalintoodii wali ma hayno fursado badan baana banaan nin baana dadka u bilaaba shaqada Cabdulqaadir baa idin bilaabay oo dal jooga laakiin idinkoo dibad jooga dalka wax ka qabta fursado badan baa idin banaan waxaan leeyahay ku dayda Cabdulqaadir Xasan Dooy Allah barakeeyo ugu dambeyntii waxa asaguna halkaasi ka hadlay Cabdulqaadir Xasan Dooy oo ah musharax u taagan baarlamaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya wixii ducaa oo odayaasha iyo culimada iyo dadka deegaanku ay mataqaanaa sheegeen oo noogu duceeyeen inuu ilaahay noo wada aqbalo inuu waalidiinteen uu ilaahay ka sawaabiyo
in mataqaanaa caruurtan yararkaana uu ilaahay uga dhigo mid ay ayagana ku badbaadaan ummadoodana ay ku anfacaan insha allahu tacaala arrinta qadiyadda dadka agoonta caruurta agoonta ah waa qadiyad jirta caalamkao dhan ka jirta waa qadiyad gaar ku ah Soomaaliya maadaama oo muddo dheer aan ku jirnay colaado iyo xanuuno cagaaran iyo deegaankan waxa ka shaqeynayay intii Soomaaliya hadda aan ku soo laabtay oo waxbarashada dibadda aan ka imid 6 sano ugu dambeysay deegaankan aan ka shaqeynayay iyo gobol iyo Soomaaliya oo dhan xusuus gooniya bay ii leedahay dadka barakacayaasha ee deegaankan ku nool siiba abaarihii ugu dambeeyay dadka ku soo barakacay iyo guud ahaan gobolka Mudug dadka ku soo barakacay ee agoonta lahaa ee mataqaanaa cid walba leh waxay mudan yihiin in la taageero dadka mas'uuliyiinta inoo ah ee meel walba jooga ama ganacsi mas'uul ha inooga noqdaan ama siyaasadda mas'uul ha inooga noqdaan ama dhaqanka mas'uul ha inooga noqdaan waxa muhiim ah inay dib u eegaan caruurta agoonta laakiin waayahan dambe waxa laga yaabaa inay dadka ugu muuqanayso maadaama siyaasad iyo arrimaha iska yimaadeen inay dadka u muuqato marka reer cagaaran way kala garanayaan arrimaha siyaasadda iyo arrimaha siyaasadda ahayn qof ka shaqeyn jiray anu deegaankan insha Allah tacaala waa ka sii shaqeynaya marba kaalin un baan uga shaqeynaya kaalinta aad ii dirsataan baan idin ka shaqeynaya insha Allah tacaala Quraan Maxamed Cabdi warbaahinta dawladda Puntland gaalkacyo